السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كتب الله بام هذا السكالة الله قدري إن نسون معنا سسوها لله سببي إن أنا مقالدي وإن ودك هتشوفتان عن معنا حدنا إنه سهلي إنتنا إن نعاوي وذا شوفنا وإنه هل كان إلهي إذنك أن نكون عشانه اسكنا ورئيسنا أنت كتب وحل إرادة حلك هي منصبك ووحسك يب وأن شوكت عين وكمل جاره وحل معناها له وحويا وحددك يعي سومالي النمضة يا إسلام النمضة يا بني آدم النمضة يوم وحل ما أنت أعطحي إنني بدلين وحشاء هذا حيد وحشلي ما أنت أعطاهنا إنسان بدلين وحبرين قدوتي مركا أنت حلك قفك حيا كل بأنه بتانك أمي سنة هي ضدك حلك الله هي كم دونا مركا هوشة لقى ريبه أنت اسمعناها ويجا أرر يا أفاف إن أنا ضدك كفضلين أنت كديد أنا ماشان سفر بانكويمي سفر كانكويمي سيدا سفر كشاقي وسفر شقو وأن سو هذه شركة حتى الماضي بريكسكا شركاس oo de warkiisa aad haysaan waxaan ku metelayay dawladdeennii Soomaaliyeed waxaan ku metelayay madaxweynihii jamhuuriyadda oo hawlo uu wadanka iyo u hayay ummadda Soomaaliyeed awgeed u soo bixi waayay inuu shirkan ka soo qayb galo isagoo caasimad ka helay madaxweynaha wadankan Koonfur Afrika sidaasaan shirka ku imi haddii shaqadii rasmiga ahayd ay dhamaatay waxaa qorshuhu ahaa inaan saakay subaxnimadii hore baxo hase ahaatee sida safarku sheegay arrintaasi abaar waa noqon weyday suurtagalna ma ahan annagana nama wanaagsaneen idinkuna dee waxbaan dambidi lahayd magacyadaad naga daba tuuri lahaydeen meeshaan waxaa joogta jaaliyad ballaaran oo Soomaaliyeed oo nooc walba ee dadka Soomaalida ay leeyihiin leh ganacsato iyo aqoon-yahan iyo xirfadlayaal iyo culimo iyo haween iyo rag iyo dhalinyaro intaba haddana meelaha ugu badan ee dadka ugu badan joogaan dadka shaqaystaan ay joogaan lagu tiriyo sidaas si la eg qolaysyada dadku ay qabaan Soomaalida ee qorbaha jooga kuwa badan oo idin dheer oo gaar idinku ah oo ka warqabno oo maqallo ama hadda inta xafiiska joogay ama intii ka hor عند الشعب كان Soomaaliyeed waddan gudihiisa jooga aan ka mid ka ahaa arrintaas waxay kaliftay intaan halkaan iman madax waddankan ka timi oo inta badan aan isku aragno goobaha shirarka la isugu yimaado loo dhan yahay inaan in badan aan halka kaga wada hadalay wajaalada meesha noo joogta iyo duruufaha ay qabaan iyo arrintaasi arrin runtii anaga dareenka iyagu la jiro inay tahay aanu jecel lahay inaanu nimaano ama dawladda cidi ka timaado dawladdan ay u timaado jaaliyadeedii aanu la shiro kadibna annagoo jaaliyadeeda wakiilka u qareemayna aanu xukuumadda aanu kala hadalno si xiriir wanaagsan oo caafimaad qaba oo jaaliyadii iyo dawladda u dhaxeeya uu samayso arrintaas waxaan u arkaynay mas'uuliyad nasaaran iyo abaar waxaase ka horeeya marka hore annaga in halkaan naga timaado oo labadii dawladood marka hore iyagu heer arrinta laga maamuli karo meesha ay isla keenaan inta ka horeysa mar walba in xiriir idinka iyo dawladii uu jirana aad bay muhiim u tahay taas marka iyadoo ay jirto jaaliyadaha waddanka caalamka inoo joogaan ay badan yihiin waxa jira wasaaradda arrimaha dibadda markii ugu horeysay waxay ka shaqaysay inay samayso siyaasadda qaranka ee qurbo joogta oo loogu talagalay in ay jirto siyaasad xukuumadeennu ay ka leedahay la dhaqanka soo dhaweynta ka warqabka iyo badqabka dadka Soomaaliyeed ee waddanka dibadiisa ku dhaqan ay ku jirto kuwa waddanka dibadiisa jira ee doonaya waddanka inay ka shaqaystaan ka ganacsadaan xirfado iyo mataqaanaa fursado kale ay keenaan dawladdu inay ay siiso gacan una fududayso iyadoo haddaba ay jiraan
waddanka dhaqaalaha ugu badan ee yimaada wuxuu ka yimaadaa qurbo joogta Soomaaliyeed meel kasta ay caalamka joogaan waxa aad u koraya waddankeennii ganacsiyada iyo mashaariicda gaarka loo leeyahay intooda badan waxaa wada maskaxda leh ama wadista leh ama dhaqaalaha leh ama qayb weynba ka ah haddaan yareeyo qurbo joogta Soomaaliyeed meel ay joogaanba haddaba maadaama muhiimadda noocaas aad leedihiin dowladdu inay qorshaheeda idinku darsato oo muhiimadda aad leedihiin la idinku dhaqo aad bay muhiim u tahay sida aawadeed wasaaraddani waxay abaabushay inay siyaasaddaas samayso weel guntaa laga unkaa baa la yidhi marka hore wax meel yaalla inay samaysmaan siyaasadda markaanu samaynay waxaanu geynay golaha xukuumaddu waa meel marisay kadibna haddaad la socoteen warbaahinta shir weyn baanu qabanay oo arrintaa lagu meelmariyey waana la ansixiyey waa siyaasad bilow ah laakiin u baahan hadhow ayada oo lagu tolayo baahida qurbo joogta in mar walba la ballaariyo oo dib u eegis lagu sameeyey waxaa kaloo jira waxaa loo safray oo la sameeyey oo la dhisay qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee meelaha qurbo joogteenu joogto jaaliyado ay xukuumaddu iyo dadkii deegaanka joogay wadamadaas laga sameeyey ay ka wada shaqeeyeen wada dhiseen isla mar ahaantaana noqday jaaliyado ay xukuumadda Soomaaliyeed iyo dowladdu ay aqoonsan tahay isla mar ahaantaana ogolaansho iyo aqoonsi ka haysata wadamada ay jaaliyadaheedu ka jiraan kama wada qabsoonin meel walba ilaa dhowr meelood weeye tirada ayaan hadda ii sugnayn waxaanu ka heli karaa waaxda qurbo joogta jaaliyadaha iyo qurbo joogta Soomaaliyeed oo ka mid ah oo waax ka mid ah waaxda wasaaradda arrimaha dibadda haddaba South Africa ama Koonfurta Afrika waa waddan muhiim ah oo si walba Soomaalida muhiim ugu ah haddana muhiim u ah dadka degan Koonfur Afrika ee Soomaalida laftigoodu inay xiriir wanaagsan iyo ka warqab ka helaan xukuumadda iyo gudihii marka in la islaafsado arrintaas waa arrin lagu baraarugsan yahay lana og yahay arrinta kaliftay marka inaanan noqon aan joogo maadaama jaaliyaduhu ay wasaaradda arrimaha dibadda hoos tagaan waxay ahayd ninkii wasaaradda joogay arrimaha dibadda wuu yimi shir buu ka qayb galay dadkiina cid iskama arkin cidna runtii ma arkin saakay quraacadii ayaan laba qof aan telefoon kula hadlay laba qof oo ila joogay baa wacay bay iswaceen waa laydii hal qof oo kale aan arkay ma jirto waan ka ahayn shaqaalaha safaaradda marka laga reebo tiim dhalinyaro oo hadda markaan kasoo baxay aan kaga daacay receptionka hotelka taa macnaheedu waxa weeye cid gaar ah iyo group gaar ah iyo cidan gaar u arkay ama aanu gaar waxu niri ma jiraan waxaan safaaradda ka wada hadalay inay muhiim tahay in jaaliyadii aan aragno si jaaliyadii aan u dhagaysto waddankeena uga warramo waxaan ogahay inaysan sahlanayn in jaaliyadii la isu keeno la isuma keeni karo waa dad ilaahay badiyey alxamdulilah laakiin xataa inta ugu badneed ay iman kartay waxay u baahan tahay waqti warku inuu gaaro fariimuhu inay gaaraan in la ballamo in meesha dadka badan isugu imanayaan la diyaariyo arrin waqti u baahan bay ahayd aniguna safarka waxaan dib u dhigtay maanta ilaa caawo oo aan laba arrimood ugu dhigtay safaaradda iyo shaqaalaheeda inaan soo arko jaaliyadda intii laga gaaro inaan arko waxaan ku adkeeyey safiirka war jaaliyadda haddii aan la wada heli karin in bal ilaa iyo xad meel kasta dad baa jooga dad odayaal baa jira culimaa joogta gabdhaa jira war bal degaan walba cid aan ka aragno jaaliyadda haba yaraato tiro lagu dhan yahay oo loo dhan yahay oo dadkii waxgalka ahaa oo mataqaanaa oo muhiimka ahaa waxaynu ka hadlaynaa wax caama qofkii maqanna wixii halkaan laga hadlay waa u tegi doonaan haddeerna miidiyaaba joogaho markii hore aanan filayn marka nuxurku waxa weeye maslaxad Soomaaliyeed isjeclaan iyo iswad iyo israbitaan Soomaaliyeed inaan dadkii Soomaalida ahaa ee halkaan joogay aan isaragno ugu yaraan maqnaanta liidataha haddii waxtarku yar yahay laakiin la iska warqabo ee la isu yimaado xataa la isu soo hoydo waa waxtar inaana idinka laaban aan idin nimaano idin wareysano annaguna idin warrano maxaa marka annaga nooga qorsho ah jaaliyadihii aan ku koobatanba xaaladiina war nagu kiinseegan maantay ma jiro waxa aad qabtaan iyo xaaladaha aad ku nooshihiin
wanaag iyo si kalaba aad baa looga dheragsan yahay soomaalida hadda waagi horeba waa iskuma seeganayn haddeerna social media ba iska jiro hadda hadalka inta hadda aan waday kelmadda aan leeyahay intii ka horreysay waxaa laga yaabaa aad hadda waddankii oo dhan inay u taalo sidaasaa markaa waxba inaan ku seeganayn laakiin muhiimadda waxay tahay sidee isu ururinaa sidee aynu jaaliyadaha kale ee ajaanibta ah oo kale u noqonnaa sidee baynu wax walba oo dhiba ugu wada istaagnaa sidee baynu dad walaala ah oo midaysan oo iswata oo isku dan iyo maslaxada u noqonnaa sidee baynu dad la og yahay oo qowmiyadaha iyo dadka ay la nool yihiin ay og yihiin inay dad midaysan oo wada jira ay yihiin aynu u noqonnaa arrimahaas marka waxaa nooga qorshaysan ilaahay idinkii siyaasadda aanu samaynaan inaan ku shaqayno annaguna inaanu cid idiin soo diro ka wasaarad ahaan ciddaas iyo idinka oo dhammaystiran oo safaaraddii annaga meesha noo jeeda dowladda wakiilka jirtana xilliga ay munaasib noqoto oo ay ka horreyso in marka horeeto wasaaradaha labada waddan ay marka hore iyagu is arkaan kadibna loo gudbo waaxdii jaaliyaduhu inay idin timaado sidaa markaa arrimaheenna aynu hore ugu soconno soomaalida waxay ku mahmahdaa waxaa la yidhi markay ceelal iyo heshiiso ayay xoole biyo cabbaan marka waxa weeye wadajir guud iyo iswadasho iyo isjacayl baa muhiim inoo ah annaguna taasaan jecel lahay inaan wax ku dhisno kuna shaqayno alla idinkii arrimaha iyagu halkaasi marayaan dowladda taasaa ka go-an sida aada isugu baahan tihiin baa gudihiina la idinkaga baahan yahay oo waddanka duruufo badan baa ka jira wax idinku seegani ma jiraan duruufahaas oo jira waa door walba ee laga qaadan karo dadka gudaha jooga sida idinkuna aad ka qaadaysaan looga qaadanayaa marka tanna inay wanaagsanaato fiicnaato idinkuna aabad qabtaan horumarsan tihiinna aad bay muhiim noogu tahay markaad idinku isceshataan ood horumartaan inaad door aad leedihiin oo iyadoo qurba joogtoo dhami doorarkeeda ay qaadanayso haddana South Africa door muhiim oo ay leedahay waddankii duruuf kasta oo ka jirta iyo xaalad kasta oo ka socota yacnaha in door muuqda reer South Africa ay ka qaataan oo calankooda iyo calaamadooda ay ka muuqato waddankii iyo waxqabadkooda aad bay muhiim u tahay marka waqtiga kooban oo la isu digay muhiimadda waxa weeye loobin siyaasadeed iyo wax kaleeto weyn hadda aniga ay daaranayd ama ay ku salaysnayd asmaadan ama aad iyaga fidiseen anigoo aan codsaday dadkan isaragna ma jirin laakiin waxay ahayd xurmada aad leedihiin iyo maqaamka aad leedihiin inaad dad Soomaaliyeed oo dadka aan u shaqayno aan u khidmayno ka mid ah oo meesha joogeen aan ugu nimi inaad tihiin inaan weynayno aanan idinka noqon waqtigaana aan soo helno nuxurku kaasoo ahaa